يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن haddii aad meesha riyadaada iyo dreamkaaga iyo waxaad rabto meel aan ahayn haddii aad taagan tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay dreamkaaga iyo riyadaadii ma gaaraysid يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلوش بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam qiimo badan kadib ku soo dhawaada maanta halkan waxaa idiga soo jeedi doonaa xalqada labaad ee barnaamijka riyadaada run u bedel xalqadii koowaad waan soo qaadanay barnaamijka riyadaada run u bedel qofkii xalqadii koowaad aanan la socon ama aanan soo marin please xalqadan inta aadan daawan ka hor soo daawo xalqadii koowaad ee ku saabsanay barnaamijka riyadaada run u bedel kaas oo ahay si aad riyadaada run ugu bedesho waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho awoodahaaga iyo fursadaha aad haysato maanta xalqada si aad riyadaada run ugu bedesho waxay ku saabsan tahay inaad gasho gelitaanka caalamka riyadaada yani qof kasta oo dunida jooga wuxuu leeyahay dream iyo riya ayuu leeyahay laakiin waxaa dhacda adduunka dad fara badan ee riya leh oo dream leh oo wax ku taamaya laakiin nasiib darro umrigooda oo dhan waxay ku bixinayaan meel aan ahaynin meeshii riyadooda ay jirtay ayay ku bixinayaan idan haddii aad meesha riyadaada iyo dreamkaaga iyo waxaad rabto meel aan ahayn haddii aad taagan tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay dreamkaaga iyo riyadaadii ma gaaraysid sababtoo ah dhankeedaba ma aadinba sababtoo ah si riyadaada adugaad waa in riyadaadii aadaa taas ayaa runtii aad iyo aad uga horeysa waxaan idiin soo qaadanayaa qiso yar oo uu sameeyey nin la yidhaahdo Mauricio Sarri waa nin tababara ciyaareed oo weyn oo Talyaaniga oo Juventus iyo meelo fara badan runtii soo ciyaaro oo mid kamid ah tababarayaasha ugu qatarsan adduunka dhanka ciyaaraha marka laga hadlayo ninka qisadiisa ayuu qoray qisada marka waxay xiriir la leedahay barnaamijkeena riyadaada run u bedel sidaas darteed ayaan wax ka soo qaatay ninka wuxuu leeyahay 20 sano ayaa waxaan ka shaqaynayay xisaabiye ayaan ahay waa 20 sano 20 sano umri gaaban ma waa umri aad runtii u dheer ama waqti aad u fara badan waa marka wuxuu dhahay 20 ka sano waxaan aad u karaahsan jiray xisaabinta iyo maarkino accountingka iyo wax la xiriira iyo caalamkaas aan ku jiro wuxuu ila ahay caalam aan ka harayo caalam aan jeclayn caalam aan aaminsanayn inuu caalamkayga ahayn marka wuxuu dhahay marka xisaabinta ka soo baxo oo shirkadii wixii aan ka soo baxo meel baa fadhiisanaya ciyaar ayaan ku mashquulaya marka wuxuu dhahay waxaan dreamkaygu ahaan jiray inaan noqdo tababar weyn oo ciyaaraha dhanka ciyaaraha ah oo yaani naadiyaasha ugu qatarsan dunida tababar inaan noqdo ayaan jeclaan jiray ayuu leeyahay saas darteeda laakiin waa xisaabiye lacag badan uu qaadanaya dabcan xisaabinada lacag fiican uu ku qaadanaya mushaar fiican uu haystay qoyskiisu aad u lanaay qatar u ahay maalintii dambe go'aan adag ayuu qaatay go'aankaasoo ah wuxuu iska casilay inuu xisaabiye noqdo oo dambe ayuu iska casilay markuu iska casilay weerar culus lagu qaado waxa ku qaaday qoyskiisa xaaskiisa ilmihiisa waalidkiisa dadkii yaqiina asxaabtiisa war adiga mawaalanta waxa tahay xisaabiye weyn waxaad qaadataa lacag aan caadi ahayn waxa ka babacsan guriga leedahay nolol leedahay wax kasta leedahay waaytay u socotaa intaas ay leeyahay markaas uu dhaamaya dibdaba u laabmaayo waxaan u laabana waa inaan riyadaydii run ka dhiga caalamkayga waa inaan galo إذا عالم كيس إنه جلأت هو عالم كرياض عيارتي الرياضية ما أهان حسابينتا ينقالها يلعب ننك اسمه ننكي وحب اللعبي ما دام وقت أو هلي إنه نادياش وضن كاس كجرة إنه لص إنه الله حيو إنه يعيش أتجا إنه وقت جيس يكون بحيو إنه لقوا المعيارتو دي إنه لقوا المتابعياش كان إنه عالم كتاب برهذا أو سفي عن أبرتو إنه علم جاس آخريو إنه متابعيه إنه فهمه يا مركز دمباء أيه وحلوني بمتك من النادياش يركع أيه وحلوني يتابعه نادي أيوه حو كان ما شاء الله آد بقول نقد نادي قطرة كده متكلم لوني بكده إلى أو كنا قوام متكملة تبرياش أو عن عالم كدوك أو عن سنة تبرة ماركت نادياش رنتي تبرة نيجي وحو نقد ناجح أو أبي أقول يستا طبعا ناجح كما هين عالم كلا حسابين تجسد العقو هلا لكن حسابية إسك عادي أيوه هاي ما أوصلنا قد الطابة صوته ماشي أو جعلاي أو ريدي سهاد معه
sidaas darteeda qisadaas iyo sheekadaas maxaan ka dhex fahminaa please markaa rabto riyadaada run inaad ka dhigto waa caalamkeeda inaad gasho caalamkeeda gasho waxaa loola jeedaa waxa aad ku riyoonayso waa inaad dhex gashaa waa inaad akhrisaa waa inaad fahamtaa waa inaad xaadirta dowlad tababar ka qaadata waa inaad wixii fahamtaa waa inaad wixii dhex gashaa haddaadan dhex gelin caalamkaaga weligaa riyaa joogaysaa wax allaale waxaa rabto ku riyo haddaad rabto inaad noqoto مثلا qof oo engineer weyn inaad noqoto waa inaad engineerida dhex gashaa haddaad noqoto IT iyo maaragtay computer science inaad qatar noqoto waa inaad noqotaa haddaad jeceshahay inaad tababaro caalamiya noqoto iyo dadka inaad saamayso oo haddaad jeceshahay waa inaad dhankeedii aadaa caalamka inaad gasho waxaan aaminsanahay mid kamid ah sababaha ugu muhiimsan ee insaan ku guuleysan kara kama xataa mararka qaarkood inaad aqoon yeelato waxaa ka muhiimsan inaad caalamkaaga aqoon waxaa ula jeedaa formally inaad maaragtay dugsi sare jaamacad PhD waxaas inaad qaadato inaad caalamka gasho waxaa jira dad fara badan hadda Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo milyaneer ah waligoodna aan formal waxbarasho gelin maxay galeen qodobkan hadda ay idin sheegayo waxay galeen caalamkii businesska iyo ganacsiga lacagta lagu sameeyay ayay dhex galeen caalamkaas hadda dhex gelin ma sameeynayso inaa hadda tiraahdo mesela waxaan rabaa inaan noqdo milyaneer aan sameeyo laakiin aad maqaayad aad ka tahay waardiye ka tahay ma milyaneer baa ku noqonaysaa ma jirto waa inaad meeshaas ka tagto oo dukaan furata dukaan ka bilowda kadib supermarket aada kadib aad soo degsatay adduun kadib kor u socota waa in caalamkii ganacsiga waa inaad dhex gashaa laakiin meel kale taagnaana riyadeeduna waa meeshaan wax isku qabanaya maaha idan waxaa su'aal ah oo aad iyo aad muhiim u ah la isweydiin karaa sidee caalamkayga ku geli karaa caalamka waan fahmay sidee ku geli karaa dabcan caalamkaaga saad u gasho waxaad u baahan tahay afar shay inaad afar tallaabo inaad qaado tallaabada koobaad inaad biicada aad ka shaqaynayso inay tahay biico riyadaadii rumaynaysa inay tahay bimacna waxaa loola jeedaa waxa aad qabanayso ya iyo inay islahaadaan riyadaadii inay isleeyihiin haddii aad tahay ganacsi milyaneer inaad noqoto waa inaad business ka shaqaynayso iyo lacag qaab lacag aad ku heli karto inaad ku samaynayso haddaad rabto inaad noqoto PhD professor qof jaamacad dhiga waa inaad akademiyada qatar ku tahay oo research samayso wax qorto buug qorto oo wax samayso oo dhankaas aado meeshii aad rabto biicada inaad taagan tahay inaad marka hore xaqiijiso waa number 1 xaqiiji riyadaadii meeshii ay jirtay ama biicadii ay jirtay inaad ku dhex jirto aad iyo aad u xaqiiji kaas waa qodobka koobaad ama tallaabada koobaad tallaabada labaad maxay tahay systemka oo u shaqeynaya caalamkaas adiga aad dhex gashana la falgal macna adduunka si wax kasto adduunku waa system shay kasto qaab u shaqeeyo leh hada siyaasad markaad galayso siyaasad qaab u shaqeysay leedahay luqada terminology la isku isticmaalay leedahay qaab loo isticmaalay leedahay meel laga gal albaabay leedahay meel laga baxay leedahay waxa soo dhan systemkaas ay u shaqeyso waa inay fahamto haddii kale adoo meel gaarin madaxa lagu dhufanaya business haddaad rabto system uu leeyahay oo akademi haddaad rabto meel kasta oo aad tagto nidaam ay u shaqaysa ayaa jira systemka ay ku shaqaynayso iyada systemkaas la falgal baro samay wixii samay kaasna waa tallaabada labaad oo caalamkaaga inaad gasho caalamka riyadaada inaad gasho ay tahay tallaabada saddexaad oo muhiima oo caalamka riyada inaad gasho ay tahay oo aad muhiimka waxa waaye in aad la saaxiibto oo aad barato dadka khubarada ku ah caalamkaaga يعني عالم كريادة هذا ضدك خبرة كوه إن الآدي ولا صاحبته يجي وحكي فائدة تصار مثلا لو حاربت أنا نقطه تببرا وين أو عن أو ضدك إسبدل سامين لكوياش ومد إسبدل كوياش أنا نقطة أي دونيسا هدي أساط ربطه تببرياشا ودنك كجرا تببرك قاضو بوجه تببر هذا آخري إسهار مري أديك TOT وحلو يقانو ترين أو ترين اللي قاضو ماله هي أنتك حرمها ودنك كجرا أما مالها كجرا للصاحب وحي هايان كقاضو سهار مري ذن وصير دقائق إلى تجاري سميش عرب إذن علاقات إلى الله سما يسأل أي مهم متهاي برامج كاس هذا مهمية مركب وحال صوش قلب كيس الدحاد وعلاقات كضدك برامج كاس خبرة دكوا متك وحال ولي ومتك مهم سن أديك هدات ربط يعني إن وحن خبير كل نقطة وإن ضدك خبير كوه وإن أتكتا لجوكتا وصاحبتا وحكو آخرسا وحكبرتا يجي لصاحبتا لجوكتا هذه مهمة طلبنا أفراد وأد مهم كوه سي عالم كاجي ولا نورات أو نحجش وحواي سفر معناه هذا محل رجيله وحاربته وأنا أسافرته سبحان الله حسب يقانا هل ماله اسكت جوجيا ماشي عمري وضمانية وحسب شقينية وأنا تكتم مال عالم كاج بيس نسار بتاع دوك وأنا سورت وأنا جاينا تكتا وأنا تركيا تكتا حتى مركز قارب تقسم أنا وحكسوا قدرت لكن بدي علىها عربته وأنا صبرته وأنا ضد الله صقرنته وأنا ماشي الأدو وقت كب حساب ها سفر كاس وحكوفة إذن سفر علمي هذا ربط علمي أنا صبرته
وإن المكتبة أدوك جوا ويناي أنت سافرت أتكتو ميلي سفرك أدو مكتبات أتكتو أقونتك صبرتو يعني السفرك أو لما علمك أو وحكرر سجى آدي أيومهم وياهي وحولك كل حجلين إياه أما عالم كاج إن نحكي شو أيو آدي وقت قيب خلايا يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن